السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمان أمة الصومالي مeel kasta oo adduunka aad ka joogtaan waa aniga dayaxdan nolosha ah soo gala mala jooga arrin yar oo muhiim ah rabaa inaan ka hadlo soo gala arrin yar oo waxaan rabaa muhiim ah inaan ka hadlo oo ninkan weyn oo maxishoodaha ah oo 80 jirka oo la dhaho Daahir Calisow oo maalmahan dhan maxaa la ishay facebookyadiisa emailihiisan qurunka ku wada dayaxdanosha horta waxaan rabaa arrinta Daahir Calisow si caadiya waxa ani asaga naga dhaxeeyo bal inaan dadkan meesha ku jiro ee faaniska ah ee walaalaha ah ee Soomaaliyeed inaan bal u sheego horta Daahir Calisow ani isku facmanihin wuu idali karaa 100 mare inaan idin sheegaa rabaa waxa ani asaga naga dhaxeeyo number 1 Daahir Calisow ani asaga waxa naga dhaxeeyo waxa waaye wuxuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha wadanka Soomaaliya soocay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha Soomaaliya soocay buu yiri qof kasta oo Facebook ama social media isticmaalo saqiir iyo kabiir baa ogtaas hadda ka hor bu Facebook-giisa wuxuu ku soo qoray maxaa lahaa hees la dhaho afkan ku amaanay Farmaajo ilaahu ha igu cadaabin baa waxa u soo dhiibi rabaa ninka la yiraahdo fanaanka la yiraahdo dayaxdan nolosha wuxuu soo ceen rabaa Farmaajo wuxuu yiri aniga u yimid wuxuu yiri Farmaajo caay waxaan ku dhahay adeer macaan wax ku sheega salaam calaykum waxaan ugu daraa wa calaykum salaam walaalo aniga Farmaajo soo ma ceen karo waxaan Farmaajo ku soo ceen karin Farmaajo waxaan ku caayo ma qabiyo waxaan Farmaajo ku aflagaadeeyo ma qabiyo aflagaada aniga oo iga mudan yahay oo aan Farmaajo inaan maanta ku caayo aniga dayax ah oo iga geystay ma jirto aniga asaga waxa naga dhaxeeyo waxba nagama dhaxeen kara maxaa yeelay ninaan taageersanaa oo jeclaa oo madaxweyne ah buu ahaa inuu madaxweyne noqdo aan jeclaa buu markii hore ahaa haddana madaxweyne noqday wixii ka dambeeyo shacabkaasan kamid ahay fanaaniintaas uu madaxweynaha u yahay baan kamid ahay wax kale oo naga dhaxeey ma jiraan wuxuu yiri dayax waa inaad Farmaajo soocaysa waxaan ku dhahay Daahir Farmaajo soo ma caynaayo waayo ma soo cayn karo waxbana nagama dhaxeyn aniga Farmaajo mar labaadkii waa iga tagay haddana wuxuu yiri waxa soocaysa ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre waa inaad soocaysa Xasan Cali Khayre markaas waxaan ku dhahay asaga haddana waa ra'iisul wasaare waxba nagama dhaxeeyaan aqoon nagama dhaxeyso dagaal nagama dhaxeyn karo fanaani iyo siyaasiyan kala nahay nin uu u taliyaa ah oo madaxdaas oo madaxweynaha oo ra'iisul wasaaraha u yahay baan kamid ahay wax aan ku caay ma qabiyo mana cayn karo Daahir Calisow sidaas buu yiri ma cayn karo baan ku dhahay haye buu iga yiri waa iga tagay haddana hees buu ii soo diray haddana la yiraahdo hodan hadda ka hor ma hees hodan la dhaho qaado laba hees baan qaado hodan la yiraahdo hees hodan la dhaho haddana ii soo diray oo aanad kala garanayn inay hees tahay iyo inay tahay maxaa la ii sheeg ida ma la dhahaa mase ari heesay inay tahay aanan la kala garanayn buu ii soo diray waxaan ku dhaadeer waxaan ku sheegaa aniga heeskan ma qaadi karo hodan waxa la yiraahdaa curadeeda aniga aan dhalay haddaan hees hodan la yiraahdo soo qaadayana hees ayada aan ku amaanayo oo aan gabadheeda aan jeclahay aan ku amaanayo baan soo qaadaya hadda aabba noqday iga raali ahaa soo ma qaadi karo hees la yiraahdo hodan wuu isoo wacay telefoonka ka qaban waay wuu isoo wacay telefoonka ku dhageystay telefoonkayga anaa iskale laftaas hormuuda ee ii jabsan aniga hormuud ka soo jabsaday aniga lacag kala soo baxay anaa iskale telefoonkaygana anaa iskale ima dhihi karo maxaa iga qaban weysa telefoonkayga cidda doonaan ka qabanaa ciddaan doonaan waa ku dhageysanaa ciddi doonaan ha soo wacdo ciddi doonaan ha iska daysa ciddaan jeclaa waa ka qabanaa ciddaan necbahana salaamu calaykum wacalaykum assalaam cidda yacni waxaan ka hadlayaa qayaar aniga u leh inaan telefoonkayga qabto iyo maxaan lahaa ii sheegay inaan iska daayo telefoonka buu caay iga soo qoray dhilla ku soo wacanaysa ma ahay balaq ku soo wacanaysa ma ahay saan ku soo wacanaysa ma ahay dhilla iyo waxa haddaad tahayna adaa isku maxaa telefoonkayga anaa iskale anaan u taliyo ciddaan doonaan ka qabanaa ciddaan doonaan ku dhageysanaa adeerkaas anaa u taliyo maxaa kuu soo haray
wuxuu yidhi ama heesteeda qaadaysaa waa may, ama farmaajo caynaysaa waa may, ama khayra caynaysaa waa may, ama heeseyga qaadaysaa waa may, ama amarkayga qaadanaysaa waa may. waa inaa marka dambe ku soo caayo. Facebook wuxuu ku soo qoray fanaankaas waa fanaan dhaqan xun, waa fanaan hebelow maxaa lahaa ii sheeg waalidkiis baa wada. horta waalidkay isma yaqaanaan. waalidkay Daahir Calisow fir iyo farac bay iskuma gelin. wuxuu leeyahay nin inay caruurtiisa ay fadaroodo ka raali ma jiro. waalidka wuxuu yiri Daahiro adiga mas'uulka wiilkaas adigoo isku ka hadlayna. Daahir Calisow hooyaday ma dhismo saabeeya dhal. maxaa isku nahay? hooyadayna waa abgaan, abeena waa shiiqaal. xabad meel aan iska soo galno ma jiro. abtini imaha adeerna imaha inta iska soo galna marka Daahir Calisow danihiisu qabsada, meelihiisu ka caytama, odayaal u caytama. taada kale waxa maangaabnimada ku ah ee aanan noloshiisa ka kabnayn baa hadda ku idin sheegaya. haddaan rabo yaanan telefoonka qaban, haddaan rabo saan doona aan u dhaqmo, saan doona aan yeelo wax. laakiin ugu yaraan maxaa la rabo mataqaanaa? waxaa lagu jiraa waqtigan ilaaha ilowgii rasuulkiis. aabahay oo ka yar Daahir Calisow baa waqtigan hadda salli ku soo aruuray oo raba inuu tusbixeysto. waxaa lagu jiro waqtiga istaghfirullah ilaahu icafi, ilaahu icafi waqtiga oo inuu waqtiga waxa dambi aan soo gala markaan yaraa ilaahu iga cafi inuu dhaho baa la rabay hadda. laakiin waqtiga laguma jirin waqti oo cunug xun oo yar, cunug yar oo 20 jira oo maxaa la ii sheeg hadda soo koraayo, ya cunug yar oo 20 jir oo hadda soo koraayo inuu la caytamo ama inuu la xifaaltamo sharaftiisa ma ahayn. adeer maxaa odayaashu isaga ceen weys? maxaa madaxda isaga ceen? farmaajo maxay isaga ceen weys? asagaas isku facatiin asagee ani maxaa igu soo maagtay? maxaan kaa qabaa ani? isku fac maanahay. war isku fac maniin, isku fir maniin, isku farac maniin, isku shuqul maniin, isku shaqo maniin. ya abaan maa tahay, fanaan maa tahay, maxaa isku fanaan isku shaqaanahay, saaxiibaan noqon karnaa. abaan isku shaqaanahay waxbaan ka qaadan karaa. maxaa ani adi naga dhexayn karo? ani adi waxaan taada kale waxaa leedahay abti ani waxaan abti ku dhahayn ku sheegaa. aniga waxaan ahay nin ku soo koray, nin wiil yar oo hooyadiisii aabihiis soo tarbiyeysteen oo akhlaaq u soo yeeleen baan ahay. oo qof kastoo ka weyn abti, adeer, habar yar, eedo, ayeeyo, awoowa dhahay baa ahay. qofkii ka weynna aboowa dhahayo, gabadhii ka weynna abaa dhahayo. sababtaas aan adeer ku dhihi abti ku dhihi jira mooye meel aad iga soo gasho mala. salaamu calaykum wa calaykum runta haddii la isku sheego meel aan iska soo galno oo Soomaali Maxamed la dhaha oo Soomaali Maxamed aanan ahayn ma jirto. ninka la yiraahdo Daahir Calisow odag weyn ee aniga soo caycaynaya meelaha dayaxdanush kule. sharafteeda ma ahayn. sharafteeda ma ahayn aniga intaan noocagan video intaan soo fariisto aan dhaho maxaa la ii sheeg Daahir Calisow baa sidaas inaan soo dhaho sharafteeda ma ahayn. waqti xitaa umeyn laba maalin ka hor miyaa ma aqaan wax saasay aheeda u maleynaa. laakiin aniga timekeyga iyo shaqadeeda aaba ka badan ba inaan aniga dadka ku mashquulay inaan cid u jawaabin, inaan cid waxay tahay iyo waxay gudiyay waxay gasho ka sheekeeyo. haddii wax la isaga qaadayo haddii wax la isaga qaadayo maalintan dhalaa ilaa hadda maalintan dhalaa ku bilaabato maxaa la ii sheeg wariya caata taa lagu ceen jiro ilaa ay hadda waa weynahay. nin weynaa noqday, aabaa noqday, mas-uulaa noqday. maxaa kuu soo haray? markaa dhahayso waalidkiisaan wada xiriirnay waxaana meel wada dhiganay maxaa la ii sheeg in la xiro. marka ani adii xiriisa ma adeer ixraa lay waaye mase abti ixraa lay waaye? intays waalidkay kugu sheegtaa? waalidkay horta meesha kugu arkaanba acuudu billahi min waa kii waalnaay bay dhahaane maxay adiga kugu hadlaan? nin waalanse waa u qaab egtahee nin waalan waxaa u qaab ekaatay marka hore dad facaa baa la xifaaltami jirtay oo ceen jirtay. laakiin nin waalan waxaa u ekaatay cunug 120 mar dhali karto maalinta soocays. war waxaa la rabay inaa iskala keeweynaato telefoon haddaan kugu dhegeysta inaa iskala keeweynaataa la rabay. hadalkaaga haddaan diidana inaa iskala keeweynaato oo iyastaa la rabaybo nuuceegan yariiska ah inaa iyastaa la rabay oo 100 mar aad dhali karto sooma. laakiin meelaha dayaxdanush uu caasiyo adiga maan kugu caasiyo waxaa isku nahay walaalo macaan. waxaa isku nahay inta iska soo galnaa ilaahay baa riwaayahay intaan iska soo galnaa intaas iska sheeganaa. markaa teed kale dhaysan dayax waxaan wada hadalnay sodogiisa markaa leedahay farxiya abeed ilaahay ha u naxariisto godka jannada ku jiro godka aakhiro ku jira. inta isku aragteen 5 sano ka hor oo dhintay subxaanallahi wa casaa wajhi xaad sodogiisa ugu jirtaa. markaa leedahay farxiya hooyadeeda wada hadalnay. farxiya hooyadeedna waa naag barso dadka kale kasta kala waayo macallimada wax dhigta waayo ya
intay kugu taqaana dadka social media ma taqaan walaal hana sheegan walaal wadadeena ka har amaan si hadaa doontana waxa doonto soo sheeg kulli aday ceeb ku tahay nin weyn oo waxa la rabay sharaf leh oo sumcad leh oo wax kasta day dhacaan inuu dadka kala la dagaalamo laakiin caruurta iskala weyn inaa noqotaa laga rabay laakiin nin caruurta la xifaaltamay hadaaba noqotayba aday ku jirtaa ilaahay iyo rabbi raxmaan ninkaas qaatumada isku soo ilaahay ana ilaahay ku baryay soco